السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها نلا صعدوا إلهي هيدا حفظ ميلاد جوكتانبا سورة الفاتحة وسورة آد مهم أقوى قفك مؤمنك فضائش هذا يواناك يديدو آد بيوتربدن يهين waxaana ka mid ah weyninka ay leedahay suuradan inay tahay tiir ka mid ah tiirarka salaada yacni salaadaadu waxyaalaha ku taagan tahay mid ka mid ah way haddii faatixa la'aan aad salaad tukatid salaadaasi ansax ma noqonayso rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab salaadii uma jirto qofka aan akhrin suuratul faatixa sidaas oo arkaysaan oo ay u yar tahay suuradan hase yeeshee waxay kulansatay oo gudaheeda ku jira nooc kasta oo sifa ama tilmaan ama magac oo ilaahay uu leeyahay tabaaraka wa tacaala suuratul faatixa waa midda kitaabka lagu furfurtay oo ugu horeysa waa hooyada iyo asalka quraanka waa toddobada isku noqnoqda ee mar walba soo noqnoqda waa caafimaad dhammaystiran waa daawan nafci badan leh waa isku tuf kaamila waa furaha qaninimada iyo hodantinimada waa furaha guusha waxay xafidaa awoodda hamiga ayay riixdaa cabsida ayay durjisaa walwalka ayay qaadaa murugada ayay bitisaa qofka garta weeye weyninka iyo qadarkay suuradan leedahay siyana xaqeeda oo ku asiiba qofka xanuunka haya garta caafimaadku meesha ooga jiro iyo sida la iskugu daaweeyo mucjisooyinka suuradani ma dhammaadaan xisaabna ma laha laakiin midda hadda aynu ku soo qaadanayna casharkeennan waxaa weeye suuratul faatixa 7 xaraf oo xuruufta carabiyadu ka kooban tahay ka mid ah ayaan suuradan ku jirin suuradan sideeda suuradaha kale lama mid ahan suuradaha kale markaad akhriso waxaa laga yaabaa dhexda inaad ku istaagtid laakiin suuratul faatixa dhexdeeda inaad istaagtid lama ogola oo aad kala goysid akhrinta suuradani waxaa ka maran oo aan ku jirin 7 xaraf oo xuruufta carabigu ka kooban yahay ka mid ah markaad si fiican ugu sii fiirsatid waad ogaanaysaa weynida iyo sharafta uu qur-aankan leeyahay ilaahay xaggiisna inuu ka yimid ayaad ka maqraati kacaysaa xuruufta aan ku jirin faatixa ee 7 waa maxay xuruuftaasi waxaa weeye xarafka jiim kha zaay shiim dha fa iyo tha waxaa isweydiin kartaa sababta 7dan xaraf suuradda loogu sheegi waayo waa maxay jawaabtu waxa weeye ay bixiyaan aqoon-yahanadu 7dan xaraf asalka luuqada waxay sheegaan ama ay tilmaamaan qallafsanaan ya naxariis darada suuradana waa suurad naxariis suurad dabacsanaan iyo caafimaad ku dhisan wey marka 7dan xarafna waxay matalaan qallafsanaan iyo adayg waxay kaloo tusaan xuruuftan aargoosi ama masiibo kaloo dhacaysa ama arrinka qofka uu dariska la yahay ee aan khayrka lahayn shiin iyo zaay haddii la fiiriyo waxay tilmaamayaan cadaabka ahlunaarka la cadaabi doono ahlunaarka markii la cadaabayo codadka ay bixiyaan ayaa zaayda iyo shiimka u taagan yihiin rabbi baa yidhi fa ama aladiina shaquu fa fi nnaar lahum fiiha zafiirun wa shahiiq kuwa nasiib darradu ku dhacday buu yidhi rabbi naar bay gelayaan halkaas bay ku leeyihiin zafiir waxa loo yaqaaniyo shahiiq waa codadka sii baxa ama soo dhammaada ee dhibaatada ama walwalka tilmaamaya ama cabsida marka suuratul faatixa sidaa darteed ayaan 2dan xaraf ugu jirin waayo waa suurad naxariis fa'du maxay tilmaamaysaa fa'du waxay tilmaamaysaa waxa loo yaqaan firaaq kala tag iyo isjar iyo iskhilaaf rabbi baa yidhi yowma idin yatafarraquun maalintaasi kala tegi doonaan isagoo ilaahay ka warramaya dadka qiyaamaha xarafka dha waxa uu tilmaamayaa ololka naarta oo hoos yeesha oo 3 geesooda markaas korka markii laga fiiriyo hoos baa la moodayaa laakiin kulayl ma difaacayo harna ma ahan rabbi wuxuu yidhi intaliquu ilaa dhillin dii 3 shucab laa dhaliilin walaa yughni min allahab xarafka kha muxuu matalayaa wuxuu matalayaa khiziga waxa loo yaqaan dulliga iyo darxumada yacni dadkaasi waxay leeyihiin dulli iyo darxumo sidaa darteed faatixada qofkii akhriyo cuskada dulli iyo darxumo ma arkayo ولذلك حرفكاسي وسكو جيرين خزيغنا waxaa quraanku isticmaalaa kuwa adduunyada lagu duleeyo ee macaasida iyo dambiyada sameeya iyo ahlu naarka xarafka tha muxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa halaag iyo calaacal waana mid ahlu naarku ay sameyn doonaan إلهي بايري لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا ما أنت على الكلية كو على الننا oo waa hoognay oo kaliya hadhihinine cala tiradii ka batay cala waa maalinta qiyaamaha alunaarka markii naarta lagu guro balliya bal cala maanto dhan cabaada bal waxa daydin qabanayso xarful jiimna asagu muxuu tilmaamayaa
wuxuu wakiil ka yahay jahannamo. ilaahay baan ka magan galnaya. waa fahamteen marka toddobada xaraf sababta loogu sheegi waayo suuradda mucjisadeedana waad garateen. waxaa halkaa idinkaga soo baxay inaynu dhahno yaa rabbi ceeb iyo nusqaani kuma agtaal mana lihid mana istaaheshid. waxaad leedahay kalaam ay ka caajiseen bila'aadanku asagoo kale inay keenaan. kalaam maanta haddaad akhrisid berri haddaad akhrisid uu mar walba kugu cusub yahay. kalaam caafimaad dhinac kastabaa dhex dhigtay. ilaahay baa soo dejiyey hadalkiisaas oo qur-aanka kariimka soo dejintii ugu quruxda badnayd iyo agaasimid qurux badan. rabbiyow ceeb ma lihid, rabbiyow waad dhammaystiran tahay. xaas iyo carruur ma lihid, cid kuu qalanta ma jirto. waxa ay kugu sifaynayaan kuwa dulloobayn ah ilaahu waad ka dheer tahay. ilaahay baa ku mahadsan wax walba uuna siiyey. nabadgelya naxariisa dushiisa ha ahaato kii ugu sharafta badnaa makhluuqa ilaahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. naxariisiyo raalli ahaansho dushooda ha ahaato aalkiisii iyo saxaabadiisii oo ku caanbaxay sabir iyo raallinimo. waa 7 xaraf oo aan ku jirin suuratulfaatixa. sababta ka dambaysana waad fahamteen ayaan filayaa. adinku sii baraaruujiya 7 xaraf aayad qur-aanka ku jirtay haddana ku jira dhammaantood 7daba. walidaalika aayadda markaad fiirisid 7 xaraf ay ku kulmeen 7daasoo aan ku jirin faatixada waxaad arkaysaa arrinkan sheegnay in uu xaqiiqo yahay. 7daas waxay ku kulmeen aayad ku jirta suuratu al-ancaam lambarkeeduna waa 122. ilaahay wuxuu yidhi waman kaana mayta fa axyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi adulumaati laysa bikhaarijin minha kadalika zuyina lilkaafiriina maa kaanuu yacmaluun. 7 xaraf aynu sheegnay aayaddaas adinkaa ka soo saaraya oo waan idiin daynay. aayadduna waxay ku jirtaa suuratu al-ancaam 122. meelaad joogtaanba caafimaad iyo farxad ku waara. jasaakumullahu khayra.